nin reer geel mudug ah ayaa dariskiisa waxaa ka dhintay qof kadibna waa loo sheegay waxaa la yiri niyahow gurigan dariskaaga waxbaa ka dhintay tacsiir ka soo gud asigoo dhahayo diidan yaa ayuu meesha aaday markuu meesha aaday oo dadkii tacsiir uu ka soo gutay wuxuu soo cuni karo uu soo cunay uu soo baxay ayaa wuxuu arkay maamo kale oo meesha taalo oo jiifto oo xaaladeeda aloo sahal ay tahay oo xilli walba geeriyoon karta ama dhiman karta intuu dadkii u wacay ayuu wuxuu dhahay kaaliya markay imaadeen ayuu wuxuu ku yiri qoftaan muujeedaan way dhiman rabtaa hadday dhimato aniga in la soo waca ma rabiye mar walba kaale ma rabiye hadirtaan hadday nafta ka baxdo oo markaan baxa kadib ay dhimato ilaahay ha u naxariisto aniga ma soo laaban kari